wafdi ballaaran oo hogaaminayay ku-xigeenka murashaxa madaxweyne ee xisbiga wadani ambassador maxamed cali cabdi ayaa waxay goor gaaban oo galabnimadii maanta soo gaadheen magaalada Ceerigaabo waxaana wafdigan dadweyne iyo gaadiid tiro badan kaga hortageen meel durugsan oo jihada galbeed ka xigta magaalada Ceerigaabo halkaas oo markay wafdigani soo gaadheen oo sharaxnahan madaxweyne ku-xigeenka wadani uu salaan gacanta la maray dadweynihii tirada badnaa ee soo dhaweyntiisa isaga iyo wafdigiisa halkaas u taagnaa wafdigan ayaa intaasi kadib loo soo galbiyay dhinaca gudaha magaalada Ceerigaabo waxaana lagu soo wareejiyay sharciyada waaweyn ee magaalada Ceerigaabo halkaas oo kolkii ay gaadheen guriga loo sii diyaariyay inay degaanna ay fagaare dadweynaha kala hadleen waxaana ugu horeyn halkaasi hadal kooban oo soo dhaweynta wafdigana ka yiri gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Sanaag Daadi Jaamac Xasan halkan maanta waxaanu ku soo dhaweynaynaa wafdigii xisbiga wadani ee uu hogaaminayay musharaxa madaxweyne ku-xigeenka maxamed cali cabdi waxaan leeyahay reer Ceerigaabo maanta waxa muujiseen waxaydaan hore u muujin waxaanu idinku hambalyeeynaynaa sida aad maanta u soo dhaweysaan wafdigan waxay noo soo socdaa musharaxii madaxweynaha maanta ayay muuqatay cidda hogaaminaysa cidda iska leh xisbiga degmada Ceerigaabo ama gobolka Sanaag waa la kala baxay xubnaha wafdigan oo halkaas ka hadleen Cabdullaahi Axmed Daamur Maxamed Nuur Carhaale Duur Marwa Faadimo Saciid Jamaal Jaamac Xamuud iyo qaar kale ayaa iyagana hadalladoodii waxa kamid ahaa waa maalin Ceerigaabo cadaysay inay wadani tahay waxaanu halka ka mahadcelinaynaa shacabkii ballaarnaa ee ilaa garadag ilaa halka aanu joogno isku xidhnaa ee joogay kulmiya waa laba waa kulmiye aynu sagooteenno oo kulmiyihii madaxweynaha aanu jeclayn Axmed Maxamuud Siilaayo waanu sagooteena kulmiyana waanu sadqayn mid waanu nayuu kulmiye iyo kii tartamayay maanta waa la sadqay labada gobol baa sadqeeyay Sool iyo Sanaag maanu iman inaanu ololayno waxaan u nimeeyoon inay dadka aanu fadno inay kaararkooda qaataan kulmiye wallahi waxaan isleeyahay iska nasta waqtigiina waa qaadateen loo doorashadu maanta isbedel doon dadku weeyeen isbedel doonkuna waxa weeye wadani baa haya ugu dambeyntiina ku-xigeenka murashaxa madaxweyne xisbiga wadani ambassador maxamed cali cabdi ee wafdigan hogaaminayay ayaa halkaasi wuxuu ka yiri waxaad muujiseen waxaanaan hore u arag waxaad muujiseen waxaanaan filaynin aad iyo aad baanu idinku mahadnaqanaa wallow maanaan imanin Ceerigaabo waxaan ugu nimidnay inaanu fariin gaarsiino ah inay kaarka qaataan kaarka qaata kaarka xafida deetana ku codeeya waxaad ugu codeynasaan waad muujiseen idin weydiin mayno oo idin odhan mayno cidda ugu codeeya waa Cabdullaahi Xasan Darwish Somali Cable TV Ceerigaabo